u fiirso in maqaarkaagu iftiimayo wax yar oo dheeri ah. xaqiiqdu waxay tahay qof walba maqaarkiisu inuu saliid leeyahay. mid kasta oo ka mid ah daloolada dubka ama maqaarka waxa ku jira qanjidho kala duwan oo soo saara saliidda dabiiciga ah ee loo yaqaan sebum. tani waxay ka caawinaysaa inay ka hortagto qaleylka maqaarka iyo sare u qaadida caafimaadkiisa. hase yeeshee dadka qaarkood qanjidhada maqaarka waxay soo saari karaan saliid aad u badan. tan ayaa abuurta maqaarka saliidda leh. waad ogtahay inaad leedahay maqaar saliid leh haddii maqaarkaagu had iyo goor uu muuqdo mid dhalaalaya. maqaarka saliidda leh xitaa wuxuu dareemi karaa qofku dufan saacado gudahood marka la nadiifiyo. sababaha keena maqaarka saliidda leh waxaa ka mid ah hidde-sidaha, deegaanka iyo qaab nololeedka qofka. haddaba halkan waxaan kusoo gudbin doonaa siyaabaha maqaarka saliidda ah ama dufanka leh loo xallin karo oo ku salaysan daraasado la qaaday. hiddaha maqaarka saliidda leh ayaa ku badan qoysaska qaarkood. haddii mid ka mid ah waalidiintu ay leeyihiin saliidda maqaarka, waxaa suurtagal ah in ubadkooduna ay yeeshaan qanjidhada saliidda, kuwaasoo si aad u daran ama xad dhaaf ah u soo saara saliidda maqaarka, waana mid uu sabab yahay hidde-siduhu. deegaanka inkastoo hiddaha iyo da'du ay qayb ka qaataan sababaha keena maqaarka inuu saliid yeesho, balse meesha aad ku nooshahay iyo waqtiga ayaa sidoo kale isbeddel kugu samayn kara. dadku waxay u muuqdaan inay leeyihiin maqaar saliid leh xilliga cimiladu kulushahay iyo weliba xilliga huurka. inkastoo aanad awoodi karin inaad iska qaado gabi ahaanba ama meesha aad ka saarto maqaarka saliidda leh, haddana waxaad hagaajin kartaa howlahaaga maalinlaha ah inta lagu guda jiro maalmaha kuleylka badan iyo huurka adoo adeegsanaya waxyaabaha dhididka yareeya. waa hab saliidda wejiga loo yareyn karo. daloolada maqaarka mararka qaarkood maqaarka ayaa fida markastoo ay korodho da'du qofku. daloolada maqaarka ee waaweyn sidoo kale waxay u muuqdaan inay soo saaraan xaddi badan oo saliid ah. ma awoodi kartid inaad soo ururisid daloolada maqaarka, laakiin waxaa taxadir dheeraada aad gelin kartaa inaad masaxdo meelaha wejigaaga ee saliiddu ay ku taallo maalinta oo dhan. waana xal saliidda maqaarka hoos loogu dhigi karo. isticmaalka kareemyo khaldan maqaarka saliidda leh ayaa sidoo kale laga qaadi karaa iyadoo la adeegsanayo kareemyada maqaarka ee sida khaldan loo isticmaalo. dadka qaar waxay isku khaldaan xaaladaha maqaarka sida maqaarka qalalan iyo maqaarka saliidda leh, waxayna isticmaalaan kareemyo aad u culus. tusaale ahaan, adeegsiga badeecada daryeelka maqaarka ee saxda ah waxay kugu samayn kartaa farqi aad u weyn xaddiga saliidda ee ku hadha wejiga. daryeelka dheeriga ah dhinaca kale, weji maydhista ama wax ismarmarin badan sidoo kale maqaarkaaga waxay u samayn kartaa saliid. tani waxay sababi kartaa qanjidhada maqaarka ee saliidda soo saara ee sebaceous glandka loo yaqaano inay galaan xaalad degdeg ah. waxay soo saaraan saliid badan si unugyada ay maqaarka ay dib ugu dhisaan. waxaad u baahantahay oo keliya inaad maydho maqaarkaaga 2 jeer maalintii si aad saliidda xad-dhaafka ah u ilaalisid. dacarta ama aloe vera waxay caan ku tahay gubashada iyo in lagu daweeyo xaaladaha kale ee maqaarka. sida laga soo xigtay daraasado caafimaad, waxaa jira cadaymo ku salaysan oo xagga sayniska ah oo muujinaysa inay ka caawinayso daweynta maqaarka jajaban ama dildilaaca oo ay sababaan finanka iyo saliidda wejigu. dad badina waxay u isticmaalaan dacarta inay ku daweeyaan maqaarka saliidda leh. malabku waa mid ka mid ah dawooyinka maqaarka ee aadka loo isticmaalo. wuxuu ka hortagaa bakteeriyada iyo jeermiska. waa mid faa'iido weyn u leh saliidda iyo finanka nugul ee maqaarka. malabku sidoo kale waa mid dabiici ah oo lagu isticmaali karo gurigaaga. si aad u isticmaasho malab si aad u daweyso finanka iyo saliidda maqaarka, mari xaddi yar oo khafiif ah una daa ilaa 10 daqiiqo. intaa kadib biyo diiran kaga warwarka ma ogta in maqaarkaagu saliid leeyahay marka heerka walaaca ama warwarku uu kordho? tan waxa ugu wacan kororka cortisol, hormoonka walaaca ee jirka, kaasoo dardargeliya soo saarka saliidda maqaarka. waxaa talooyin caafimaad lagu soo jeediyey inaad yareyso heerka warwarka si hoos loogu dhigo saliidda badan ee wejiga. ukunta ama beedka qaybta cad iyo liindhanaanta ayaa ah dawooyin wax ku ool u ah maqaarka saliidda leh. labada maadadoodba waxay si weyn uga taraan adkeynta daloolada maqaarka. aashitada ama aysiidha ku jirta liindhanaanta waxay gacan weyn ka geysataa nuugista saliidda maqaarka, sida lagu xusay daraasad la sameeyey sanadkii 2008. liinta ayaa sidoo kale leh awood ay kaga hortagi karto bakteeriyada. si kastaba ha noqotay, daweyntani maaha doorasho wanaagsan oo lagu talagalay dadka qaba xasaasiyadda ama alerjiga beedka.